بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo khamiis ah saddexda bisha tobnaad 2019 waxa halkan magaalada Boosaaso xarunta madaxtooyada ku qabsoomay shirka golaha wasiirada ee dawladda Puntland oo shir gudoominayay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni toddobaadkan waxyaabaha looga hadlay kamid ahaa amniga wasaaradda amniga iyo DDR-ta ee dawladda Puntland ayaa golaha uga warbixisay xaaladda amni ee guud dalka oo aad u sii wanaagsan waxa sidoo kale wasaaraddu ay ka warbixisay qorshayaasha socda ee lagu tayeynayo ciidamada dawladda Puntland tirakoobka socda iyo waliba hirgelinta xiriyihii ciidamada lagu tababarayay oo haatan dhamaada oo tii ugu horeysay qorshuhu yahay in laga furo dhawaan magaalada Qardho iyo waliba diyaarinta ciidamada tababaradooda iyo sidii horumar loogu sameyn lahaa dhinaca amniga oo meel wanaagsan maraysa taasi oo qayb ka ahayd qorshihii madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni siyaasadiisa kow ka ahayd ilaalinta amniga iyo horumarinta ciidamada si loo helo ciidan tirsan oo tayeysan oo qayb weyn ka qaata sina horumariya amniga guud ee dalka sidoo kale goluhu waxa uu bogaadiyay kulankii fagaaraha uu kula hadlay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni bulshada gobolka Bari habeenkii dhaweyta ka dhacay magaalada Boosaaso iyo falcelintii ka soo laabatay oo aad ay dadku u soo dhaweeyeen kulanka waxa looga hadlay dhismayaasha golayaasha deegaanka waxaana laga sheekeeyay haatan sida ay qorshuhu u socdo degmooyinka golayaasha deegaanka loo dhisay iyo kuwa loo diyaarinayo iyadoo haatan xubno ka tirsan golaha wasiirada ay ku sugan yihiin degmada Buuhoodle waxaa sidoo kale kulanka looga hadlay oo lagu soo bandhigay diiwaanka siyaasadda iyo xeerarka dawladda Puntland 1999 ilaa 2019 oo dib eegis lagu sameynayo xeerarka la soo gudbiyay kuwa qabyada ah siyaasadaha wasaaradaha iyo sidii loo horumarin lahaa waxaa kulanka sidoo kale looga hadlay horumarinta iyo waliba casriyeynta lagu wado garoomada diyaaradaha ee Puntland taas oo qayb ka ah in kor loo qaado garoomada diyaaradaha iyo xarumaha dawliga ah iyo kaabayaasha bulshada iyo kuwa dhaqaalaha waxaana madaxweynaha dawladda Puntland yoolalkiisa kamid ah maalgelinta oo kor loo qaado dalka si loo horumariyo guud ahaanba Puntland taasi oo ka qayb ka ahayd waxyaabihii ka dhashay una kamid ahaa shirkii maalgashiga ee Puntland ee dhawaan ku qabsoomay magaalada Garowe waxa aad loo amaanay horumarada dhinaca amniga laga sameeyay waxaana madaxweynaha dawladda Puntland uu faray dhammaan mas'uuliyiinta dawladda in lagala shaqeeyo laamaha amniga adkeynta amniga guud ahaan Puntland iyadoo sidoo kale laga hadlay kulankana looga hadlay arrimaha siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland iyo waliba doorarka siyaasiga ah ee dawladda Puntland ay qaadanayso arrimahaasi oo dhamaantood ku soo dhamaaday guul aad iyo aad buu mahadsantahay